waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo Tabaarak ICT Solutions oo almost jirta 20 sano ku dhawaad waqtigii ay la aasaasay iyo ujeedkii laga lahaay aasaasitaankeeda. Ujeedada ugu weyneed waxay ahayd waqtigaas waxaan ogeyn 2007 kadib 2011 inta u dhaxaysay tiknoolajiyada wadanka iyo guud ahaan dunida meesha ay mareysay waqtigaas qof kasta oo halkan fadhiya waa ka dheregsanay. Ujeedada waxay ahayd in la helo shirkad Soomaaliyeed oo isku keenta dadka tiknoolajiyada bartay iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee u hamuun qaba inay helaan solutions baahidooda ka tarjumaya. Asaaskaas oo la mid ah wax kasta oo 20 sano ku dhawaad Soomaaliya laga sameeyay ayay shirkadu qayb ka ahayd. waxay ku guuleysatay inay noqoto hab dadka tiknoolajiyada bartay laga soo bilaabo 2006 2005 jaamacadaha ka baxay ilaa 2025 dadka jaamacadaha ka baxay tiknoolajiyada bartay inay noqoto meel masdar ah oo qof kasta oo dhalinyaro ah ee tiknoolajiyad bartay oo rabo inuu ka shaqeeyo tiknoolajiyadaas meesha ku dabaqi lahay ay noqoto Tabaarak. Xasuusanaa 2008 waxaan furnay adeeg la yiraahdo Dhaweeye oo bedelay habkii dadku ay taxi u raaci jireen. Markaan bilaabeynaa waxyaabaha dhaca waxaa kamid ah inuu dhooq gaari 6,000 aan ka soo bixiyay maanus $1 lagu raaca. waxa la xalinayana waxay ahaayeen taxigii intuu ka qaado meel kale ku geeyo ugu yaraan 25 technology-ga fududeysay. Tabaarak waxay sameysay platforms oo ay kamid yihiin ride sharing iyo e-commerce platform kii ugu horeeyay oo uguna baaxadda weyn. fursadahaas Tabaarak waxay dhaxal siiyay inay abuurto si indirect ah iyo direct ah shaqa abuur baaxad leh. ayadoo intaas laga duulayo ayaan hadana mar kale waxaan qaadanay aragti ah in Tabaarak ay u baahan tahay transformation ka wadanka ka socda inaan qayb ka noqono. waxaan ku faraxsanahay in maamulka gobolka Banaadir maanta caawa nala joogaan waxay nagu aamineen gudoomiyaashii iskaaga dambeeyay laga soo bilaabo gudoomiye Umar Filish, gudoomiye Sheekh Yuusuf, gudoomiye Amiir iyo Dr. Xasan oo hadda joogaba inay Tabaarak ka qabtirtay wixii tiknoolajiyad ee gobolka Banaadir oo u baahnay marka ay noqoto financial systemska ama revenue collectionka oo lagu daray dhammaan systemska ay u baahan yihiin. arrintaas waxay si direct ah saameyn togan iyo mid ugu yeelanay qaabka uu u fikira. waxaan nahay dad contextigii fahamsan system laga yaabo in loo design gareeyo shirkad kale ama wadan kale baahidiisu inta kama shaqeey karto. marka wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed jaamacadaha wadanka ka soo baxay inay systems noocaas intay sameeyeen lana aamino maamulka gobolka Banaadir waa ugu mahadcelinaynaa. xaqiiqatan waxay qaateen wax markaas ay u arkayeen in ay suurtagal ahayn si hawshaas aan u sii dadajino. in ku dhawaad 20 sano waxaa mar kale la qaatay 20 sanaad shaqeynayseen wax cadeynaya inaad u dhowdihiin standardka adduunyada isla waafaqsan tahay ma jiraan. taasaa keentay inaan caawa aan u dabaaldegno shahaadada tayada oo la yiraahdo quality management system ISO 9001 shahaadooyin kala ka dambeeyo ay kamid tahay security-ga systemska name it. laakiin tan waxa waaye waxa aad ka shaqeynayso ma leeyihiin habraac la isla ogol yahay oo adduunyaduna taqaano oo qof kasta oo ku challenge gareyn karana oo ku dhigi karo maxaa haysataa waay. shahaadadan kaliya ma aha paper isla qaato waa commitment ama ka go'naan ah in lagu controlo everything ee shaqada caawa dhacis ma iska qaadan karo qofka engineerka caawa inuu system laga yaabo 200,000 qofood oo si direct saameyn ugu leh inuu intuu publish iska saaro suurtagalka ma naqorin inuu habraac maro waay. habraacaas waxaa qayb ka ah dhammaan stakeholderska oo ugu weyn yahay customerska. shahaadadani marka waa shahaado waxaan ku faraxsanahay inaan kamid nahay Hormuud portfolio. Hormuud waxay qaadatay almost 5 sano ka hor. laakiin wadooyin badan oo ay noo soo ay laga yaabo ayadu inay si adag ku soo martay anaga way noo fududaatay sababtoo experience-gii
iyo knowledge transferkii laga faa'iidaystay dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay ay ugu horeeyaan xafiiska ama waaxda quality-ga ee Hormuud Telecom waa u mahad celinaynaa oo nagala shaqeeyay inaan gaarno heerkan waxaa kaloo mahad celinaynaa dhammaan injineeradeena iyo shaqaalaheena guud ahaan commitmentiga shirkadda la qaatay oo maanta caawa aan la dabaaldegayno dhammaantiin mar kale iyo mar kale waa ku mahadsantihiin inaad noo imaataan inaad nala dabaaldegtaan waxaana rajayn doonaa inaan meeshan ka sii wadno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu